Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waxaan asxaabay kusoo dhawaada wararka ciyaaraha maanta. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe saar sina share gareysa asxaab badan u gaadho. Aynu eegno wararka ciyaaraha maanta. Kulamadii la ciyaaray horyaalada Yurub. Mohamed Salah ayaa ku guuleystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican sanadkan Premier League. Real Madrid ayaa heshiis cusub la gaadhay Luka Modric. Waxaan ka marnayn hadal haynta suuqa kala iibsiga. Real Madrid ayaa maanta gegida Santiago Bernabeu ku soo dhaweyn doonta dhigeeda Espanyol kulan ay isha ku hayso in ay ku guuleysto horyaalka La Liga. Madrid ayaa u baahan in ay hal dhibic oo kaliya hesho si ay ugu dabaaldegto ku guuleysiga horyaalka walow aan koobka maanta gacanta laga saarin. Espanyol ayaa la xasuustaa in ay wareegii hore guuldaro 2-1 ah soo boday Los Blancos. PSG ayaa barbaro la gashay kooxda Strasbourg kulan la iska dhaliyay 6 gool. Kulankan waxaa aad uga dhex muuqday kabtankii hore ee kooxda Real Madrid Sergio Ramos. Goolasha PSG waxa uu kala dhaliyay Kylian Mbappe oo 2 gool shabaga soo taabtay, halka goolka saddexaadna uu dhaliyay Achraf Hakimi. PSG ayaa barbarahan yahay kulankii labaad oo xidhiidh ah, balse hoggaanka Ligue 1 waxay ku hogaaminaysaa 14 dhibcood. Paris ayaa kulankii toddobaadkii hore u dabaaldegtay kadib barbarihii ay gashay kulankaasi. Xiddiga Mohamed Salah ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaartoyga sanadka ugu fiican horyaalka Premier League ee ay bixiso ururka qorshayaasha kubadda cagta, waana markii saddexaad ee uu qaato abaalmarintan. Mohamed Salah ayaa abaalmarintan ku guuleystay sanadkii 2018, waana mar kale oo loo doortay inuu yahay ciyaartoyga ugu fiican horyaalka kadib markii uu helay 48% codadkii la qaaday. 29 jirkan ayaa abaalmarinta la guddoonsiin doonaa Khamiista toddobaadka dambe ay taariikhdu tahay 5 May, waxaana uu ku garaacay kubad sameeyaha Manchester City ee Kevin De Bruyne iyo khadka dhexe ee West Ham Declan Rice. Salah oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 30 gool oo dhammaan tartamada ah iyo 14 caawin oo iyaguna dhammaan tartamada ah, waxa uu yahay ciyaartoyga hogaaminaya abaalmarinta kabta dahabka ah isagoo saxeexay 22 gool oo horyaalka Premier League ah. Tababaraha ku-meel gaadhka ah ee Manchester United Ralph Rangnick ayaa shaaciyay in kabtanimada laga qaadi doono difaaca reer England ee Harry Maguire oo suluug badan laga muujiyay xilli ciyaareedkan, kaasoo su'aalo badan ay ka taagnaayeen hogaamintiisa iyo qaab ciyaareedkiisa. Intaba Harry Maguire ayaa marar badan lagu sheegay ciyaartoy aan lahayn hogaamin, waxaana labada tababar ee kala dambeeyay ee Ole Gunnar Solskjaer oo bishii Oktoobar laga caydhiyay Ralph Rangnick intaba lagula taliyay in ay kabtanimada ka qaadaan Maguire. Real Madrid ayaa heshiis cusub la gaadhay laacibkeeda khadka dhexe ee Luka Modric oo qandaraaskiisii hore ugula jiray kooxdu oo ku eekaa dhamaadka xilli ciyaareedkan socda. Luka Modric ayaa oggolaaday inuu saxeexo heshiis sanad ah oo ku sii haynaya Santiago Bernabeu oo uu ka yahay xiddig lama taabtaan ah oo aanay da'du wax saameyn ah ku lahayn, waxaana Carlo Ancelotti iyo maamulka kooxdu ay ka shaqeeyeen in lagu sii hayo kooxda. 36 jirkan oo tiir dhexaad u ahaa Real Madrid guulihii ay gaadhay xilli ciyaareedkan ayaa dhaliyay 3 gool, 9 kalena oo caawiyay, isagoo u ciyaaray 39 kulan oo tartamada oo dhan ah. Luka Modric ayaa Real Madrid u ciyaaray muddo 10 sannadood ah, waxaana uu saftay 430 kulan oo uu dhaliyay 31 gool iyo 70 oo caawiye ka noqday. Waxa uu kula guuleystay 4 Champions League iyo 2 Horyaal Liiga ah, Copa del Rey iyo koobab kale oo badan, isagoo sanadkii 2012 uga soo wareegay Tottenham Hotspur. Garnacho oo daayir ka soo baxay kulliyadda Manchester United, waana 17 jir aad ugu mashquulsan sidii uu tababarka ula qaadan lahaa Cristiano Ronaldo oo Khamiistii nasiib u yeeshay inuu kulankii koobaad ka garab ciyaaro. Horena waxa uu sidoo kale tababarka ula qaatay Lionel Messi oo ay isugu yimaadeen training-ka xulka Argentine. Garnacho Khamiistii ayuu kulankii koobaad u saftay kooxda koobaad ee Manchester United, ciyaartii ay barbaraha gool iyo goolka la galeen Chelsea, taasoo u diiwaan gelisay taariikh iyo riyooyin uu lahaa oo rumoobay. Waxa ay fursadani u soo baxday isbuucyo yar kadib markii looga yeedhay xulka qaranka Argentine oo lagu daray, iyadoo uu tababaraha xulka ku qancay qaab ciyaareedka heerka sare ah ee uu laacibkani ka sameeyay daa'irka Manchester United. Garnacho oo kulamadii caalamiga ah ee ugu dambeeyay ka mid ahaa xulka qaranka Argentine ayaa markii uu tababarka la qaatay Lionel Messi waxa uu ku tilmaamay xiddiga uu ku daydo. Haddana waxa uu nasiib u yeeshay in uu Cristiano Ronaldo ka garab ciyaaro. Asxaabay wararkeena ciyaaraha maanta waa naga intaas. Assalaamu calaykum.